Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan qiyaarta awada naga dhageysanaysay ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka raadiyo Wadaag caawa dawladda Soomaaliya oo agab caafimaad gaarsiisay dadka ku dhaqan degmada Baardheer ee gobolka Gado madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlay saameynta oo yeeshay roobabkii ugu dambeeyay ee ka daay deegaanada maamulka Galmudug dawladda Norway oo 16,000 oo qof oo Soomaali ah siinayso deganaansho dalkaasi madaxweynaha maamulka Galmudug oo mar kale sameeyay maanta magacaabis kiisas hor leh oo cudurka coronavirus oo laga diiwaan galiyay magaalada Jigjiga xarakada al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada dawladda ay leeyihiin iyo taliska ciidamada dawladda oo ka hadlay weerarkaasi amiirka dalka Qatar oo amray in qalab caafimaad la gaarsiiyo Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Eritrea oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee geeska Afrika intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynaa ee raadiyo Wadaag